hadlo taariikh nololeedkayga faneed in waxaa waaye waxaan ahay fanaan cusub oo kusoo biiray mar dhaweed muddo sanad iyo bar ilaa 2 sano laga joogo 2017kii dhammaadkiisii marka waxaan deganahay dalka Belgiumka waxaan deganahay jiray dalka Soomaaliya gobolka Hiiraan degmada Bulburde waxaan joogaa wadankan Belgiumka muddo gaaraysa 18 sano 2001 ilaa hadda 2019kii dhammaadkiisa 2020 almost laga rabaa haddaan taariikh fanaadkayga kaaga hadlo waxa waaye waxaan ahay fanaan isku taxaluujiyay inuu fanka Soomaaliya wax kusoo biiri karo inaan isku arkay oo aan dhanka ka soo galay marka qoyskiina iyo dadka eheladaada qof dad fanaaniin ah ama gabyaayaal ah oo ku jiray ma jireen oo aad ka dhaxashay fanka والله هدان حقيقة كهلا ما كجران wax fan oo qoyskeena laakiin waxa waa qoyska midba meel oo ka soo baxa mid qofba wax buu noqdaa aniga hamigaygu wuxuu ahaa aniga damacayga marka gaar ahaan ka hadlo inaan fanka heerka gaaro marka fanaana igu jiray marka waana ku socdaa insha Allah taala sida waa sida ila tahay marka mursalow ma jirtay fanaan aad kaga dayato fanka oo kugu dhiirigeliyay inaad fanaan noqoto fanka ku soo biirto oo aad heesto wallahi maya wax fanaani oo igala taliya ma jirto laakiin waxaan isku taxaluujiyay inaan fanka soo galo waxaan se jeclaa jiray fanaaniin fara badan oo Soomaaliyeed oo aad aan u dhahay meeshii gaaraan gaarsii war heesahaaga marka saas ay jirtay fanaaniintaas kuwa ka mid ah والله وبدين waxaa kamid fanaaniintii dhameede caanka ee Soomaaliyeed waaweynaa marka meeshii gaareen ina meel intaan gaarsiin kara aan gaarsiin jeclahay ka waran marka adiga heesa badan aad samaysay heestaadii kugu horeysay ama heesaha ugu horeeyay mid kamid ah bal la xasuusi oo markii ugu horeysay aad qaaday والله waxaa kamid ahaa heestaas waxaa la dhahaa hees amaan ahayd maadaama ay Soomaalida maamada rag isfaashuari isnoogta kuwa dhahay kuwana waxay dhaheen amaani afkaaga kaaga ma sokayso maamaha kala dhahayso marka aniga waxaan qaatay tii amaani afkaaga kaaga ma sokaysa markaas heersi mursal ma qaaday markaasaan qaaday heestaas hayee noogu luqeybal macaano mursal macaani macaano malab macaani macaano midab macquule macaano mursal modest macaano jecel miraale mamanta muqdisho amaani macaano midaad mudneedba muhiim hela meel maraysa saas isku dhexaysa marka heesta marka alifaysay ujeedada in is amaanto un kaliya may ahayd mise waxyaabo kale oo kugu dhaliyaa jiray maadaama curinteedii aan dhahay wax waa samayn kartaa ayaan waxaan dhahay horta kuugu hore aad isku broobay intaad qof ku broobay haye marka saas ay imaatay marka adiga waa isku baroobaysay ka waran heesta guul intee la egay gaartay marka wallahi heesta aniga ilaa hadda waa qancisay si fiican inuu socdo haye dadka say u arkeen dadka markay fariimo kuu soo dirayaan oo kale say u arkaan waa dad badan ayaa yaabay oo dhahay war ninkan muxuu isku amaanay marka qof iscaay ma aragteen aan dhahay su'aashii jawaabaan u raadiyay marka way soo waayeen qof iscaynayo oo dhahay aniga waa xumaay aniga waa saas ahay marka waxay noqotay qof walba inuu si dadban isku amaano si toos inuu isku amaano marka ani si toos ay ugu gudboonaa heesaha kale ee midda caanka noqotay waxaa ka mid ah kac jacayl u kac heestaas ka waran ayada waa sax heestaas waxay ka mid tahay heesayga ugu caansan marka waana hees baraarujin wax walbaba waxba baraarujin u ah heesa wadaniye oo baraarujina jiro heesa jacayl oo baraarujina jiro marka heestan waxay ka micno tahay heesta jacaylka baraarujinta dhalinyarada in ay hamigooda kalgacalka ama jacaylka la dhahayo ay baraarujin u tahay in qofka markuu qofka kale ka jiifo uu ku ataago oo uu yiraahdo ma jacaylku ka cadid oo hurdada ka kacdid maadaama ay leedahay hurdada ka kac hello baby hello hooda hello huno hello baby marka intaan heesta miraheeda u galin laxanka sideed ku saartay muusiga sidee ku saartay muddo intee la eeg kugu qaadatay wallahi music waxaa saaray yar saaxiibkay Cabdirasaaq la dhahayo marka anigana ereyada iyo laxanka anaa lahaa
marka saasaan ku sameynay la xamaynta ka waran muddo intee leeg kaaga baxday marka heesta in ereyada si ay isula dhacayaan inaad keento sida ay tahay oo aad ugu luqaynayso inaad alifto muddo intee leeg kugu qaadatay wallahi heesta laxankeedu waxa waaye laba laxan waaye laxanka heesta qaybta hore kacdaysa qaybta dambe oo hello baby days waa laba laxan oo kala duwan oo isku imaanaya laakiin oo la isku lamaaniyay laakiin waxay iskugu imaanayaan waxa waaye waxay ugu qaadatay adi waqti yar ma waqti aan 10 daqiiqo wax la mid ah ugu qaadatay heesaha kale tan waxa laga yaabaa hees inay kugu qaadato laxankeeda uu kugu qaato nus saac uu ku dhigo haddana aysan fiicnaan heesna inay 10 daqiiqo ka yaraato 5 daqiiqo kugu qaadato laxankeeda oo laakiin ay ku kala kacdo marka waxaan waxa uu qudratullah waa oo heebad ilaahay bixiyo marka heebad ilaahay ku siiya inay taa u aragtaa ha saasaan noogu luqay bal ereyada marka heesta kac jacayl u kac sana isku dhacaysaa kac jacayl u kac jacayl u kac jacayl jaarka jacayl jihaysan jacayl joog dheer jacayl jilistii jacayl jadaali jacayl jiro joog kac hurdada ka kac hurdada ka kac hello baby hello hoodo hello huuno hello haybi hello hiili hello heesaha loo kacan aan dhehina iyo jecelka in lagu heeso marka hurdada ka kacaa ku dhex jirto maxaa ula jeedaa meesha hurdada aad ka kicinaysaa mise jacaylka naftirkiisa waxaan ka kicinayaa qofka jecelka ka jiifo ayaan leenahay jecelka u kaca haye dad ka jiifo jacaylkii ma aragtay adigoo isleedaha loo kiciyo simbri labada qof midaa jiifo midka jiifa la kiciyaa haye ka joogaa kiciya marka mursalo marka waxaa jiro sanadkii ugu dambeeyey ilaa sanadii barkii ugu dambeeyey heese aad u badanaa soo saartay taageerayaal badanna waa yeelatay marka sanadkan 2019 kale tirada heesaha aad soo saartay imisay dhan yihiin wallahi ma aan korka ma hay laakiin waxa waaye hadda heesigo dhan adiga markii la isku daro adiga kontameeyo waaye adiga ilaa 60 camal laakiin ma ka warhayo totalkooda laakiin abaarihii meelahaas ku aaday marka ilaa 2017 ilaa hadda waxaa soo saartay in ka badan ilaa ku dhawaad 60 heesood saasa qiyaasaya 60 kaaga heesood ma hubtaa marka inay dadkii ugu targashay ay gaareen oo ay jeclaadeen oo ay ka heleen wallahi waxaan dareemayaa inay dadka badan ay maqleen marka inkastoo taan dhihi karin waa wada maqleen qof walbaba heeso badan oo ay maqleen way jiraan heeso maqleen waa jiraan marka saas iskugu dhex jiro haye baraha bulshada haddaa usoo noqono YouTube iyo Facebook oo kale dad badanoo waxaa jiro adiga ku dhaliilo iyo kuwa ku ammaanayo ka waran marka labada dhinacba see u aragtaa wallahi kuwii taageeray kuwii mucaaradaba waxaan la garab taaganahay aniga in meeshii booskii qof uu kasoo bixi lahaa mar walbaba mucaaradnimana waa diyaaran u ahay muxaafadnimana waa diyaaran u ahay maxaa yeelay qof muxaafad wada leh ma jiro qof mucaarad wada lehna ma jiro waxyaabaha lagugu dhaliilaya dadka ku dhaliilaya ay kuu soo diraan maxaa ka mid ah wallahi commentigay ku bixiyaan heesaha Facebook badanaa meelahaas ka baxaan iyo YouTube-ka iyo marka wuxuu qofba ra'yigiisa u dhiibanaya ra'yigiisa ama ha fiicnaado ama ha xumaado oo mucaaradnimo ku saleysnaado ama muxaafadnimo ku saleysnaado ra'yigii kula yaab badnaa muxuu ahaa inta dadka mucaaradnimada aad ku arkayso ku mucaaraday ra'yigii aad la yaabtay qof uu ku soo diro muxuu ahaa wallahi waa kala duwanayeen waxaa hadda aan dhihi kara saasay ahayn ma jirto waxyaalo fara badan oo aad arkaysaa laakiin badanaaba caadiyan ka ahayo waa u diyaar ahaa labadaba marka hadda kuwa aan arko waxaa ka mid ah kuwa dhahayo mursal ma telefoonad wax iskaga duubaysaa kuwa ku weydiinayo qaabkaa u ciyaarayso markaa heesta ay socoto kuwa ku weydiinayo tirada heesaha aad soo saarto iyo muddada aad ku bixiso maadaama heese fara badan aad soo saarto muddo yar gudaheeda iyo sida aad u soo saarto kuwa ku dhalo kuwa ka waran marka fariimahaas oo kale see u aragta adiga wallahi waa on qofka afkiisa oo kala qaadan waxaa yeelay inuu wax comment ka bixiyo waa loo taagan yahay marka commentigiisana mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha noqdo waa mid u taagannahay marka waxaan leenahay labadaba waa soo dhaweynaynaa qaabka u ciyaarta marka adiga yaa ka keentay su-aashaas oo kale hadda qofkan uu ku weydiinayo intaan soo qaadan wallahi waxa waaye on waxa adduunka horumar hore usii socdaa dadna waxa waaye maba ciyaaraan ciyaar hadday maqlaan waxay leeyihiin
war soo ciyaaraya anuu nin weyn soo ciyaaraya haddaa nin weyn tahay marka hore maxaa fanka faraha ku geliyay taagantaa maasha haye adi marka marka qofka qoobka ciyaarkaaga waa ku hadduu qanacsan tahay oo dadkaad rabta inaad barto tusto waa ku qanacsanaa si fiican maxaa yeelay waxaan tusayaa dadkii meeshaan kasoo muuqada inaan soo muujiyo fankii oo dhinacu qofka uu u arkay wanaagga asiga uu ka muujin karaa marka aniga wuxuu dhan inaan kala reebo ma jecli qoobka ciyaarka heesaha wixii macquul oo kale oo sii fara badan kaameradana had aan insha usoo allah noqono kaamerada aan usoo noqono markaa wax duubayso markaa bilowdo gadaal gadaal inaad u sikanaysaa ka muuqato dadka qaar waxay leeyihiin mobile maxaa u isticmaashaa commenteska si ay kusoo qorayaan ay fariimahan dadka ay kusoo direen wallaahi nin walbaba afkiisa u furan marka aniga waxaas wax kama jiraan dacayda oo iska socoto waayo oo mucaaradka uu leeyahay ta muxaafadkana bal soo fiiri iyadana muxaafadka mid ka mid aan soo qabto wuxuu ku leeyahay faradegano waxaa tahay fan noole waa mahadsan yihiin labadoodaba mucaaradka iyo muxaafadka marka waxaan ku darayaa taas qof walba ra'yigiisa asigaa leh marka wixii fikrad oo laisku darsadana ma xumo kii fikrad fiican la imaadan waa ka qaadanayaa haddaan meel ka qaldanaha waa iga sixi karaa kii fikrad qaldaman watanaya asigana waxaan leeyahay waa qaldantahay bal adiga anima qaldan iyo adigaa qaldanayso soo toos marka kale ii keen hal arrin kale haddaan ku weydiiyo ujeeddada adiga heesaha u qaado oo dadka ugu soo dirto maxay tahay ya ujeeddada oo fanka ugu jirto oo heesaha u qaadayso faladegan ahaan maxay tahay waa hami aan ku faraxsanahay oo aan leeyahay meeshaas fanka inaan kasoo bixi karaa isku dareemay waxa waaye waa magac oo aan leeyahay magaca ku yeelatay fanka ummadda Soomaaliyeed dhexdooda maadaama aan qof Soomaaliyeed oo jecel dadkiisa iyo dalkiisaba ahay dadkiisan magac ku yeesho marka waxaan kasoo bilaabay inaan dadkayga iyo dalkayga magac ku yeesho waxaana ka arkay inaan fanka magac ka yeelan karo haddaan usoo noqono marka 2020 bilow ah ka waran marka fariintaadu maxay tahay heeso maxaa ugu talagashay sanadkood soo wada wallahi heeso badan aan soo socda sida heesta isboortiga oo ah iyo heeso kale oo fara badan heesta isboortiga meelaheeda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wallahi si kale iskugu dhacaysaa weli way soo bixirtaa January February meelaha ka soo bixisa 2020 waa diyaarinaysaa weli diyaarisa ku jirta laakiin ma soo dhamaanaysaa insha Allah fariintaada marka ugu dambayso dadka u diraysid maxay tahay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee heesayga ku xiran ama aniga ugu xiran marka waxaan leeyahay waxaad iga sugtaanba waa maxaa waaye wanaag iyo sharafta fanka oo aan kor inuu sii qaado aan jeclahay kuwa kor u wada inaan ka mid noqdo